bismillaah assalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta igu xiraan janaalka seenab shaqaadan insha allah maanta waxaan la wadaagayaa video cusub videogeena saa ujeedaanba maanta wuxuu ku saabsan yahay beer iyo rooti iyo maxaa la yidhahaa maaragtay iyo beer marka insha allah tacaala soo dhawaada asxaabay quraacdii oo quraac soomaali la yaqaano wahay soo maahan beer ari iyo maxaa la yidhaahdaa rooti maasha allah tabaarak saas waaye soo dhawaada insha allah tacaala meesha waxaa noo saaran beer ari oo fresh ah beerka ariga waxaan ku dhahay oo maaragtay markaas laga soo qaaday macnaha neefkii insha allah tacaala anaga waxaa waay wadankeena beer horta ma weehaysid galab iyo subax iyo casr iyo duhur laakiin beerka ayaa kale ah mid fresh ah iyo midaan fresh ahayn haddaad maaragtay beer fresh rabtid waa inaad qofka maxaa la yidhaha lasii dardaarantaa oo dhahdaa beer idhig saas waaye ama maxaa la yidhaahdaa aad samaysaa alesey aad kacdaa laakiin beer haddii aad u baahan tahay oo beer le aad ka galaysid waxaan ku dhahay 7 saac duhurkii xataa waa helay galabtii xataa waa helay oo aryaal waxaa jiro oo la qalo oo wadamada iyo meelo kale loo dhoofiyo kadib maxaa la yidhaha beerkiisa oo ilaa galabtii iska yaalo so insha allahu tacaala waxaan ilaahay soo dhawaada intan waxaa noo saaran in maxaa la yidhahdaa ii sheeg basashii barbaroonigii iyo waaye beerkeeni waa soo jarjarna asxaabay beer ariga fresh mar walba uu yahay laakiin waxaan ka wadaa had dadka oo maaragtay qurba joogta saa'idka anaga xoogaha meelahan dhadhawaan joognaaye oo dibadaha fog jooga waxaa waay mid oo fridge leeba cunaa soo maaha sanadob iskaga jiraahan u malaynaa saasaa la sheegaya anama tegin laakiin waxaan ku dhahaa anaga waxaa waaye kulayl asagoo ayaa soo gadanaysaa insha allah haddii adiga habsaamin insha allahu tacaala marka waa kaasa asxaabteyda intaas waxay faahfaahin yar oo abdheyd maaragtay aan siinayay hadda waxaan dhahaa beerkeena wuu noo saaray insha allahu tacaala quraacda boobsiisa ay ahayd maxaa la yidhaahdaa maaragtay kulli inaan soo duub jarjarkii wax dhan soo duub ma ii suurtagelaynin maxaa dhacay maaragtay ciyaal oo dugsi ku maqnaay ayaan quraac u geynayay soo marka boobsiis ayaan ku sameynaya insha allah hadda barbarooniga wax dhan aan kusoo darsanay beer ariga waxaan ku dhahay waa 1 2 3 4 le waa mahno inkastoo beergeelu kasii gaaban yahay waqtigiisa oo beerka geela iyo beerka ariga waxaa ka risoodaa la dhahaa beergeel marka insha allahu tacaala asxaabta karisana waa lasoo weydiin doonaa insha allah marka asxaabay soo dhawaada insha allah tacaala waa kaasaa qudaarteena ku darsanaynaa sidaas maaragta quruxda badan ayay noogu eg tahay insha allahu tacaala waxaan idin rajeynaya inaa caafimaad qabtiin janaalkiina waaye insha allahu tacaala waa kaasaa kusoo dhawaada quraacdii qiiciisa waa taasaa videogii wuu gaabnaa maxaa dhacay waxaan ku dhahay waxaan rabay inaan maaragtay ka habsaamin dugsiga oo meeshaan ilmo ayaa dugsiya noo aado oo maaragtay cuntada waa loo geeyaa wadankeenaan insha allahu tacaala marka haddii aad maaragtay muuqaalkay shalaag dheh oo comment kasoo bixi oo waxaan ku dhahay asxaabtaa la wadaag insha allah rootigeena waa kanaa rootigan maxaa la yidhaahdaa waa kasa fresh waaye insha allahu tacaala rootiga oo maaragtay oo badanaa Nairobi subaxdii laga quraacda looga cuno waaye oo maaragtay meel walba aad ka helaysid oo meel walba iridaada aad ka helaysid dadka dhan way yaqaaniin dadka Nairobi hore u joogi jiray iyo dadka maaragtay hadda ku noolbo marka insha allahu tacaala maybe inuu dad xiisaynin ay jiraan aniga waagii hore ma jeclaan jirin waay dambe ayaa la qabsaday saa'id ma u jeclaan jirin rootigii Soomaaliya ayaa ka macaana oo ka maaragtay taas fiicnay laakiin haddana haddaa la qabsatid waxaan ku dhahaa waa kaasa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu